قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر إمام من أئمة الحديث وإمام كإسكاله كتاب كالإرادة المصنف عمل له يقانو مصنف عبد الرزاق وكمد من كتب الحديث. وأنا شيخ الإمام أحمد بن حنبل يحيى بن معين أي مفر بدن أيا وحق قادتي. الإمام أحمد بن حنبل وحلق وريا إنه إرادة مشهورة لابد من صنعاء وإن طال السفر. صنعاء ولقى مارمان إن لا تغو سفر كهبر ديرادو لابد من صنعاء وإن طال السفر. أحمد وحلي صنعاء ولقى مارمان معنى الذهاب إلى صنعاء والسفر إلى صنعاء ولقى مارمان سفر كهبر ديرادو دونه معنى يقول جيدا مركا صنعاء محوك دونه يا أحمد وهو أرح ليسنا يا عبد الرزاق مركو لي لابد من صنعاء وإن طال السفر وهو روا إنه أرح ليسته إلى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني وحكى صوبرته وعلم بدن وكسو حنباره وفعلا واسمي وأصفري. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله وعالم كمد من علماء السنة لكن وحلي في آخر حياته وحاقلي نوع من التشيع نوع تشيع كمد تشيع معناه الشيعي إنما لولا جدا اعتقاد الشيعة وأنا أرنتها وحلي السبب أها نين أول صاحبي أو شيعي أها نين كاسو أها نين أخلاق ونفسا موجين جري زهد موجيني صنعاني أو جعلستي عبد الرزاق أو جعلستي طبيعة عديسة مجالسة نين كاسا لقى قارب على عبد الرزاق نين كاسنا وحال إرادة جعفر بن سليمان الضبعي تانا وحي تسالو تهي تأثيرك إيا سامين تويليه إن لا صاحبه قفا ونكسنين وحي كالو قصة تسينيسا قفك علمي سهيركو دونا هجارو إنو صندهن أنيقو مرهدان وحاقانو عدان دونا اسكالا فريسان إياه كسامو بما يسحما معصومته مهما بلغ علمك هيركو دونا هجارو فعلقا يابين لقو سامي صنعاني عبد الرزاق عالم بوها وإمام لكن هذا مع ذلك سامين أي وحاكويا شيء نكاسي جعفر بن سليمان الضبعي مركا صاحبه سامين بدن بوليه وحاكلو قصداس لغا قادنيا inuu san qofku ku kadsoomin hebel waa zaahid iyo hebel waa warac badan yahay waa dhowrsanaan badan yahay iyo waa aamusnaan badan yahay waxa si tixgelin malaha qofka aqeedadiisa iska fiiri muxuu aaminsan yahay laakiin waa dabeecad fiican yahay iyo waa degan yahay iyo waa afgaaban yahay ma hadlo iyo waa cibaado badan yahay waxa soo dhan ma tusinayso aqeedadiisu inay wanaagsan tahay markii khawaarijta la sifaynayo waxay ahaayeen dadka kuwa ugu cibaado badan oo nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam inay cibaad yihiin tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim ayku wuxuu tusinayaa inay yihiin dad cibaado badan salaadiinaad xaqiraysaan marka salaadooda eegtaan macnaheedu waa maxay xagga salaada idinkaga horeeyaan soonkiinaad xaqiraysaan ma'a siyamihim dad aad u cibaado badan ay ahaayeen laakiin cibaadadaas faraha badan ma anficin maadaama i'tiqaadkoodu waa i'tiqaad faasid oo baatila ma'a dalika nabigu wuxuu ku sifeeyay inay yihiin kilaabun naar khawaarijta wa ayyihi naarta wuxuu yiri sharru qatla tahta adiimi as-samaa dad la dilo oo yaani lagu dilo samada wixii ka hooseeya wax lagu dilo ayaga ugu shar badan wa khayru qatla man qataluhu dadna waxa ugu khayr badan buu qofkay dilaan oo gacantooda ku baxa dadka sida nabigu u sheegay kaleey salaatu wasalaam oo ku tilmaamay inay kilaabun naar yihiin inay dad shar badan wuxuu tilmaamay hadana inay cibaado badnaayeen oo soon iyo salaad badnaayeen marka aqeedadu waa muhiim jiddan qofka in i'tiqaadkiisu saxan yahay waa loo baahan yahay salaad iyo soom iyo cibaado in lagu dadaalo laakiin maca salaamati al-i'tiqaad cibaadada ku dadaal ayadoo aqeedadaadu ay nadiifta i'tiqaadkaada uu yahay i'tiqaadu salaf as-salih manhajkaagu yahay manhaju salaf ku dadaal cibaadada waafaqsan hadiyga nabiga sallallahu alayhi wasallam marka Abd al-Razzaq ibn Hammam waa imaam kama nazulin inuu imaam yahay laakiin hadana ta'athur ya saameyn baa ninka ku yeeshay wuxuuna ku kadiyay bi zuhdiga uu muujinayay waraca uu muujinayay samtiga uu muujinayay waxyaabahaas uu ka toomay